kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halka Bulsha Sports TV markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada ayna waxaa kamid ah Williams ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa xagaagan AC Milan ayaa qorsheynaysa inay iska iibiso Rafael Leo Fulham ayaa la soo wareegtay xidiga Liverpool Wilson Tottenham ayaa diirad saaraysa Martial intaasi waxay qodobadii warkaatana ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan Williams ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa xagaagan ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka Wales ayaa isha ku hayay inuu sii joogo Anfield inkastoo ay jiraan warar sheegaya in laga soo dejin karo suuqa kala iibsiga xagaagan Naka Williams ayaa soo jeediyay inuu sii joogi doono Liverpool oo lalaha 2021 ilaa 2022 inkastoo uu arka lacag dhan 10 milyan oo euro oo u dhiganta 14 milyan oo dollar oo meelo kale la isla dhaxmarayo gool ayaa xaqiijisay horaantii xagaagan in Reeds ay diyaar u tahay inay isku furato dalabyada daafaca reer Wales ma jiro wax heshiis ah oo la qabtay inkastoo 20 jirkan uu diyaar u yahay inuu la dagaalamo Alessandro Arnold iyo Annie Robertson daqiiqada joogta ah AC Milan ayaa qorsheynaysa inay iska iibso Rafael Leo warbixintaasi waxaa eegaya Xasan Cumar Xuseen Milan ayaa qarka u saaran inay iska iibiso Rafael Leo xagaagan sida laga soo xigtay Calcio Mercato xidiga garabka ka ciyaara ayaa ka dhacay booskiisa Rosener waxaana loo ogolaan doonaa inuu baxo hadii dalab ku dhow 30 milyan oo euro yimaado wakiilkiisa Jorge Mendes ayaa raadinaya koox cusub oo isaga u gaara waxuna la xiriira Wolves laakiin ma jiro dalab ilaa iyo haatan Fulham ayaa la soo wareegtay xidiga Liverpool Wilson ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka Wales ayaa ku soo biiray kooxda heerka labaad kadib markii uu ku dhibaatooday inuu ku biiro kooxda koowaad ee Jurgen Klopp ee Anfield Fulham ayaa 12 milyan kula soo saxiixatay Harry Wilson oo ka socda Liverpool shabakada gool ayaa xaqiijin karta inuu jiri doono 15% iibkiisa ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka Wales ayaa saxiixay heshiis 4 sano ah oo ku dooran karo mid shanaad Wilson ayaa laga saaray kulankii saaxiibtinimo ee Liverpool ay ka badisay Minis Jimcihii wuxuuna heshiis shakhsi ah la gaaray horaantii toddobaadkan kooxda Cotacaris oo sanadkii hore ka dhacay Premier League Tottenham ayaa diirad saaraysa Martial qodobkaasi waxaa eegaya Xuseen Cumar Xuseen Tottenham ayaa xiiseynaysa in Anton Martial kala soo wareegaan Manchester United Red Devils ayaa raadinaysa inay ka iibiso xidiga heerka caalamiga dalka Faransiiska adduun dhan 50 milyan oo gini Daily Star ayaa sheegaysa in ay Spurs ay ku farxi lahaayeen inay kala soo wareegaan laakiin lacagta iyo mushaarkiisa ayaa laga yaabaa inay ka dhigaan Ronaldo ayaa sii joogi doona kooxdiisa Juventus xidiga reer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa galay sanadkii ugu dambeeyay heshiiskiisa kooxda reer Turin waxaana la xiriirinayaa inuu ka tago kooxda madaxweyne ku-xigeenka kooxda Juventus Bafil Nedved ayaa sheegay in Cristiano Ronaldo uu la sii joogi doono kooxda xilli ciyaareedkan Ronaldo ayaa la xiriirinayaa inuu ka tago kooxda ka dhisan Serie A xagaagan kadib niyad jab leh oo soo wajahay xilli ciyaareedkii 2020 ilaa 2021 intaan ku soo gabagabeynaa wararkii ciyaaraha Bulsha Sports TV iyo aniga Amuun Cismaan waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo